madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa runtii hanjabaad u soo jeediyay gobolka Minnesota madaxdeeda waxa uu sheegay in uu u soo diri doono ciidamo military xeerkan kacdoonka ah uu doonayo uu sheegay inuu isticmaalo waa xeerkee waa nooce maadaama hadda ka hor uu soo diray ciidamadii kale ICE 3000 oo askari maxay tahay ciidamadan uu mar walba ku hanjabayo uu rabo inuu ku soo daadgureeyo gobolkani ujeedada ka dambaysa maxay tahay والله horta waa su'aal isweydiin leh ma hanjabaad baaba hadhayba waxa weeye 3000 oo ciidana oo sida militariga u tababaran oo baabuur gaashaaman wata oo qoryo waaweyn wata ayaa already wadooyinkeenii jooga marka hanjabaadta ka dambaysa de waxaan u malaynayaa ma dibaabada iyo diyaarado ku daqeeyo xaafadaha un baa haray baan malaynayaa in haddii aynu u soo noqono xeerkan waxa xeerka kacdoonka baa la yiraahdaa ama waxa loo yaqaano Insurrection Act baa la dhahaa xeerkani wuxuu soo baxay qarniyadii hore waxa loogu talagalay in xeerkani wuxuu madaxweynaha awood u siinayaa in uu la wareego ciidamada gobol kasta ku sugan ama gobolka marka ay wax ka dhacaan gobol waliba wuxuu leeyahay ciidamo military oo gaar ah oo waxa la yiraahdaa National Guard gobolkani uu leeyahay waxa la yiraahdaa Minnesota National Guard waxana ay ciidamada tiradoodu dhan tahay 13,000 oo askari weey oo rag iyo dumar iskugu jira oo military isla markaana qaarkood qaybo waxay leeyihiin ciidamada cirka ah ayaa ay leeyihiin caadi ahaan waxay ka amar qaataan gudoomiyaha gobolka ayay ka amar qaataan kuweenani waxa xukuma general la yiraahdo Major General Sean Manke nin la yiraahdo ba xukuma oo general darajadiisu sareysa ah ninkaas waxa uu ka amar qaataa hadda caadi ahaan markayna waxba jirin oo wax waliba caadi yihiin gudoomiyaha gobolka Tim Wells gobol kastina waa leeyahay laakiin haddii xeerkani la dhaqan geliyo waxay noqonaysaa halkii generalkani Sean Manke uu amarka ka qaadan lahaa gudoomiyaha gobolka Tim Wells waxay noqonaysaa si toos ah inuu madaxweynaha uga amar qaato inuu madaxweynuhu ciidamada militariga wadada ku soo daadiyo iyo ciidamada kale ee militariga ee qalabka sida dawladda dhexe ay leedahay sida kuwa la yiraahdo Marineska iyo US Army noocyada kala duwan iyo kuwa la yiraahdo Navy SEAL ee halista ah kuwaas weey marka xeerkani waxa weey madaxweynaha ayaa waxa uu awood u siinayaa in uu magaalooyinka waaweyn uu keeno ciidamada qalabka sida ee Marineska iyo Navy SEAL-ka US Army iyo kuwa oo ciidamadaas oo loogu talagalin inay la dhiil gareeyaan dadka shicibka ah haddii aad weydiiso xeerkani yacni taariikhiisa ma la adeegsaday waa la adeegsaday lixdameeyadii waxa adeegsaday madaxweyne la oranayay Lyndon Johnson LBG baa la oranayay marka la soo gaabay Lyndon B Johnson baa la oranayay dimuqraadi buu ahaa waa ninkii bedelay markii la dilay madaxweynihii John Kennedy marka xilliga waxa socotay midab kala sooc baa Mareykanka ka jiray oo madowga waa xilliyadii madowga loo ogolaanayay in ay iskuulada iyo basaska iyo waxa raaci jireen ay raaci karaan marka gudoomiyaha gobolka Alabama ee waqtiga ayaa waxa uu diiday in ay ardayda madowgu ay soo gali karaan oo ay fadhiisan karaan kalaasyadii cadaanka loogu talagalay amar diida ayaa uu sameeyay marka maadaama uu amar diida sameeyay madaxweynaha waqtigaasi ee Lyndon Johnson waxa uu dhaqan galiyay xeerkan waxa uu la wareegay ciidamadii National Guard-ka ahaa ee Alabama kuwaasi oo uu ku amray in ay iskuulada xoog ku galaan ardayda madowga ay qasab oo kalaasyada ku fariistaan qofkii ka soo horjeesta ama mudaharaad sameeyay cadaanana la xiro marka ilaa intay xaaladdu ka degayso dhan ardaydii madowga waxa ilaalinayay ciidamada militariga ee Mareykanka basasku barkii hore waxay ahaayeen basas kala soocan oo segregated buses baa la dhihi jiray madowga xagga dambe fadhiisan jireen
waxaa markaa iyadana loo ogolaaday inuu qofka madowgi meesha uu rabo uu baska ka fadhiisan karo in shaneebooyinka meeshuu doono uu ka fadhiisan karo waxaasoo dhan sidii loo dhaqan gelin lahaa ciidamada militariga ayaa muxuu ahaa dhaqan geliyey waxa kale oo la adeegsaday 1992 bilowgeedii xilligaasoo rabshado ay ka dhaceen magaalada Los Angeles ee gobolka California waxa dhacday rabshadihii la oran jiray Los Angeles oo Los Angeles Riots loo yaqaano oo waxay ka bilaabmeen laba askari oo booliis ah ayaa waxa ay dileen nin madow kadibna oo kamaradu ay qabatay oo la wada arkayay in ninkaasi si xaq darro u dileen kadibna maxkamad iyo guddi xeerbeegtii oo cadaan ah ayaa waxa ay sheegtay labadii nin ee booliiska ahaa inayna waxba lagu waayay oo la fasaxay taasi waxay liibaan oo ay sababtay in dadkii madowga awood badan ku leeyihiin Los Angeles oo shuftooyinka ugu waaweyn ee gaangiskii ee Bloods iyo kuwa la yiraahdo Crips ay leeyihiin waxay noqotay rabshadihii in ay iska hor yimaadaan booliiskii iyo madowgii oo rabshado ay dhaceen oo dadkii la boobay oo dadka madowgu ay qoriyo la soo baxeen oo ciidamadii rasaasay si markaa loo dejiyo xaaladda ayuu madaxweynihii xilligaasi uu isaguna adeegsaday xeerkan oo ciidamo military oo waliba ciidamada US Army-ga la yiraahdo ayaa uu geliyay madaxweynihii waqtigaasi oo sidaas ayaa lagu dhameeyay marka xilligii ugu dambeysay la adeegsaday taas ahayd laakiin waxa la yaab leh in uu ku fikiro Donald Trump in uu soo geliyo Minneapolis oo mar imikaba noqotay goob dagaal oo sidii muxuu ahaa Ciraaq iyo oo kala ah oo ay ku dhawaad 3,000 oo askari ay joogaan magartay cawaale sidaan la socono gobolo fara badan oo California Chicago runtii ciidamada ICE lagu daadiyay dhibaatooyinkan runtii xooga badan ama hanjibaadahan faraha badan lagu sameynayo maysan ka dhicin maxay tahay Minnesota iyo madaxweynaha wuxuu ka damacsan yahay markaa waxa loo tirinayaa waxa ay tahay madaxweynahan oo ah madaxweyne kardaro badan dadka uu target gareynayay iminka uu xooga saarayo Soomaalida ah Soomaaliduna halkii ugu badnaa ee ay wada ku leeyihiin waa in gobolkan aynu joogno oo gobolkan waa gobol Soomaaliyeedba iyo taa waxa kale oo sii dheer in maamulka gobolkan ay yihiin dad daciif ah oo ninkan gobolka ay yahay nin jilicsan oo aan karti lahayn oo aan iska celin kareynin waxaana uu ka daba socdaa gudoomiyahan gobolka Tim Walz waxa ahaa musharaxii madaxweyne ku xigeen ee Kamala Harris ee tartanka la galay Donald Trump intii uu ka daba socdaa waxaana uu rabaa gobolkani waa gobol u xidhan xisbiga dimuqraadiga marka wuxuu rabaa inuu gobolkani noqdo gobol Republicana oo dadka waaweyn cadaanka uu kiciyo yiraahdo cashuurtiini baa la cunaa oo muxuu ahaa Soomaaliya loo diraa oo al-shabaab loo diraa ama ururada argagixisa marka kaca in aniga waxa idila qabanaya xildhibaano Republicana u codeeya marka horta cod weey inuu gobolkani dadka cadaanka ee daada weyn uu kiciyo iyo saan horeyba u sheegay in maamulka dimuqraadiga halkan ka jira oo dad daciif oo u nuglaaday oo Donald Trump ka adkaaday imika in Chicago waxa haysto magaalo dimuqraadi gobolku waa gobol dimuqraadi laakiin iyagu waxay sameeyeen waxay la tiigsadeen cadaaladii la tiigsadeen dacwad bay ka gudbiyeen maxkamadda sare ee gobolka Illinois ayaa go'aan waxay ku soo saartay in ciidamada muxuu ahaa ICE ee faraha badan ee laga saaro magaalada Chicago maxkamadii Donald Trump baa lagu amray uu ka saaray in gobolka California nin awood badan baa haysta oo dimuqraadi waa ninka la rabo inuu isa sharaxo madaxweynaha soo socda weey waxa la yiraahdaa Gavin Newsom baa la dhahaa in xoog bay iyagu iskaga saareen oo Los Angeles xoog bay iskaga saareen waxaad ogeyd in xarunta Los Angeles la weeraray oo ICE laga dilay dhowr qofna laga dhaawacay waxa aan ogeyn in wadooyinka magaalada Los Angeles ay mari kari waayeen oo la dhagaxyeeyo oo muxuu ahaa in si walba ciriiri loo galay taasoo keentay in ay yareeyaan muxuu ahaa in joogitaankii ICE isla markaana hadda gobolkaas waa gobolka ugu Isbaanishka badan oo xuduudii Mexico ku taalo San Diego weey xuduudda Mexico aad bay dadkan sharciga lahayn muxuu ahaa ICE ay u soo galaan haddana
waxa ay way ku yar tahay howlgalla kama fuliyaan muxuu ahaa ICE. marka liibaan waxay caddaynaysaa in California waxa ka jira maamul awood badan oo waa ninka keliya ee iska celinaya iska difaacaya oo Donald Trump ee safka hore kaga jira. laakiin waxaan gobolkeenan iyo maamulkeenani waxa uu noqday nin daciif ah oo had iyo jeer uu weerarayo. welina maanaan arag waxyaabaha la yaabka, weli maanaan arag Tim Walz oo Donald Trump weeraraya sida ay u weerarayaan muxuu gudoomiyaasha kale gobolka California iyo gobolka Illinois. xataa Portland Oregon oo iyaduna magaalo dimuqraadiya way iska celiyeen. marka waxa weeye dhibta waxa weeye Tim Walz waxa uu ku guuldareystay inuu gobolkiisa difaaco, inuu shicibkiisa difaaco. taas ayaa keentay inuu Donald Trumpna uu gobolkii ka dhigo goob dagaal oo Ciraaq iyo magaalooyinkii Baqdaad ee taasi waxay ku cadaynaysaa inuu failed garooway ama uu baqay Tim Walz governorkeena inuu yiri isuma sharaxi doono mar dambe. marka waxa uu haystay hadduu uu ka laabto inuu soo sharaxayo ushan ama dagaalkan iyo afligaadadan iyo weerarkan Trump wado inuu ka joojinayo haystay. laakiin waxba kama joojin weather adi aad iscazishid aadan iscazilin dagaalku kugu socdaa. marka waa runta saad sheegtay governorkayga aad buu maaragtay laciif u yahay. waa gartay inan wiil yaroo YouTuber oo hal video diyaariyay dartiib isku casilay. taasaa cadaynaysa inuu daciifnimo halkii ugu dambeysay uu taagan yahay. waa runta aan ka sii socono gobolka Minnesota. runtii jaaliyadu Soomaalidu xaggeeda waa lagu orkacsadaa marka aad fiirisid. jaaliyadu tirada halkan ku nool waxa ka tira badan community-da kale ku nool gobolkan Minnesota ayaa ka badan. laakiin jaaliyadii waxay noqotay Soomaalidu halka lagu orkacsado oo lagu beegsado oo wixii xunba mataqaana hebel baa xuntii la sheegayo ay ku sii socoto waay. dhawaan isla madaxweyne Trump waxa uu runtii digniin ama amar ku bixiyay bisha March 17keeda inay wadanka ay kaga baxaan Mareykanka 700 oo qof oo Soomaali ah oo haysta warqadda la yiraahdo TBS-ka temporary runtii wadankan ay ku joogaan. marka arrimahaasi maxaa dheeriyaad noo haysaa idana awaale? sanadkii hore dhamaadkiisiiba waa kii sheegay in uu Soomaalida haysata TBS-ka waxa loo yaqaano temporary waxa loo yaqaano muxuu ahaa temporary protective status baa la dhahaa, in si kumeel gaadha aad xeerkani uu ku ilaalinayo oo aanan lagu masaafurin karin. marka xeerkani TBS-ku waxa uu ahaa in wadamada qofka ka yimid wadamada uu dagaaladu ka socdaan in intaa wadankiisu uu hagaagayo uu iska joogi karo oo iska shaqaysan karo aanan la celin karin ayaa xeerkaas. maadaama ay Soomaaliyana burbursanayd muddada badan ee 30 sano ka badan oo Mareykanka ku haystaan meel weli burbursan, xeerkaasi wuxuu ahaa xeer jira oo qofku marka uu ka dhaco loo cusboonaysiiyo. laakiin Soomaalidu way ku yarayd oo sanadkii hore waxa la sheegay Soomaalida haysatay inay tahayba 300, laakiin maalmahan waxa la sheegay inay yihiin 700 oo qofna marka la eego Soomaalida waa dad tiro yar. laakiin wadamada qaarkood Venezuela 1,800,000 oo qof haysta muxuu ahaa in TBS-ka. Haiti wadanka la yiraahdo 1,100,000 oo qof haysta oo berigii dhulgariirka uu ka dhacay iyo muxuu ahaa in amni darro oo gaangis ay wadanka qabsadeen, dad badan oo Haiti ah u soo qaxay halkan u soo guuray. marka dawladdu waxay siisay waxa la yiraahdo TBS-ka ilaa inta wadankooda hagaagayo. Donald Trump waa uu kansalay TBS-ka muxuu ahaa Haiti iyo Venezuela. marka TBS-ka qoomiyadaha kale ee Isbaanishka ee wadanka malaayiinta ku jooga bilaa sharciga ayaa muxuu ahaa ku xun yahay, uu faa'iido wahaa oo haddii la kansalo uu muxuu ahaa waxyeelay. laakiin Soomaalida marka la eego, Soomaalidu waa dad 95% wax ka badan sharci leh, qaarkood 50% meesha ku dhashay,
kuwa kalena ay muwaadiniin caadi oo Maraykana ay yihiin marka 700 oo qof waa dad tiraya laakiin de haddana lagama maarmo hal qofna ha ahaadee marka waxa uu qabtay 17 March laakiin wadankan sida isagu u dhaqmayo waxa weeye waa si kaligiitasnimo oo dictatornimo laakiin de wadankani waa wadan institution iyo hay'ado dawladeed leh qofku marka uu ka dhacayana waxa hadana uu ka badbaado qabqabashadan ICE waxa u furan 3 bilood oo kale oo uu maxkamadaha ku tago kiiskiisa qof dadku isku kiis noqon maayaan qof walba kiiskiisa ayaa la eegayaa sida ay sheegeen sharci yaqaano aan wareystay marka wuxuu haystaa qofku 3 bilood oo kale oo kiiskiisa loo eego oo ay marka xaakimba ka gaaraya go'aanka sidaas baa marka xaakimku ka gaaraya ama uu oran kara wadanka iskaga bax iyadoo xaaladda wadankii ka jirtana la eegayo ama uu ugu cusboonaysiin karaa marka wuxuu ka rabaa un dhibco siyaasadeed laakiin maaha wax gacantiisa ku jira waa wax gacanta garsoorka ku jira garsoorka wadankana aan ognahay mid cadaalad ku dhisan oo madax bannaan oo ka madax bannaan dawladda iyo ma laga yaabaa marka Cawaale inuu ka laabto inta aysan dhamaanin 17 March umalayn maayo waxa laga yaabaa inuu iska iloobo oo hadda maalmahanba waxa laga yaabaa inuu Soomaalida ka mashquulo oo waa kan meel walba isku qaadaya waa kii madaxweynaha Venezuela soo qabtay haddana waxa laga celcelinayaa inuu Greenland wuxuu rabaa uu qabsado oo Yurubta iyo NATO dagaalka la galo marka wax kama noqday uu iska iloobaa oo muhiimad u samayn mayso laakiin arrinkan wuxuu yaalaa maxkamadaha garsoor aad baad u mahadsantahay